الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسنا وعن ميل كستا دونك جوجتان ولا لا شرفت له إلهي سبحانه وتعالى دنبغينا دنبغ والتكنا دافو كسو دوادا برنامج كان أنا ugu magac darnay rabbiga baro walaalayaal barnaamijkan waa barnaamijaan ugu talagalnay inuu taxana noqdo waxaana ka codsanayaa markuu ku soo gaaro inaad si faafisid waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku anfaco dad fara badan isla markaana uu ku badbaadiyo diintooda adigana uu ajir Allah subhanahu wa ta'ala ka siiyo walaalayaal xalqadan koowaad ama qaybta ugu horeysa barnaamijkan waxaan ugu magac darnay Allah subhanahu wa ta'ala mashaki ayaa ku jira jiritaankiisa waxa runtii wax laga naxa ah ama aan dhibsaday inaan mowduuc noocan oo kala ah idin soo bandhigo anigoo og inaad tihiin dad muslimiin ah isla markaana ka qanacsan in jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin walaalayaal nasiib darro waxa dhacday inay soo baxeen dad fara badan oo leh Ilaahay baanu ka shakisanahay wal ciyaadu billah walaalayaal jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uma baahna daliil aad iyo aad u weyn oo uusan qofka fahmi karin waxaana muuqata in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqligeena fahansiin karo jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala jiro walaalayaal waxa jira afar arin ayaa loo daliishan karaa daliilka koowaad waxa weeye aqliga iyo dareenka iyo sharciga mid afaraadna ku darso fitrada waxa la yiraahdaa wuxuu Ilaahay qofka ku abuuray qof kasto bil aadan ah oo noole ah hatta xayawaanka wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray jiritaan ah inuu jiro alla abuuray fitrada marka waxa la yiraahdaa qofku wuxuu ku dhasho ku soo barbaaro hadii aanan laga shakisinin ama aan waswaas lagu furin aqliga maxaa loo doortay aqliga waxa weeye qofku inuu wax ku fahmo sharciga dib ayaan u dhiganayo hada qofka haduu san rumaysnayn Allah subhanahu wa ta'ala inaad quraan ku akhrisid wax badan uma faa'iideynayso laakiin hadaad aqliga kaga dhaadhicisid jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ogolaanaya qofkii walaalayaal aqliga wuxuu aqliga toosan ee nadiifka ah wuxuu ogolaanaya jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku waxa la weydiinaya cirka iyo dhulka geedaha biyaha badaha buuraha waxyaalahan aan u jeedno ma ayaka is abuuray oo naftooda ayaka sameeyay mise waxay hal mar baysaas ku yimaadeen mise waxa jira abuure sameeyay oo arinta ka dambeeya aqliga wanaagsan wuxuu ku leeyahay buuraha iyo cirka iyo dhulka isma abuurin واسمه أبورين عليك اسمه سمعين كران هاي ما كديس بيكون مادين صدفة أيكون مادين سداس أيكون مادين عقلك وناكسين وحكولية ما يكون ما إيمانين سؤال شجرة واحد هاي هدبا إركا يدولك يا أبوري قفك مركز سؤال شو استاجيا واحد جرا قف واحد أبوري أي جرا ساس درت يدوح على الشيقة يعني أبي حنيفة إمام أبي حنيفة واحد يمد قلو كم رميسي جريتانك إلهي سبحانه وتعالى مركو حيري إمادة يقصوا اللابطة ويكون كتاقين وحيري انتا مقنيدين وحاتي مدون اسلستي سعوته علاب وده بدا يسومرتي علابتي ويدجيسي ديتانا ويسكال لابطي نمانكو حيرادين دين ورنيو منكو عياريسا دون با استساميسي علاب سوقادي اسكال دجيسي اسكال لابطي معقول ما هم بيده مركز يحكو يراد إلهيك عركة يقولك أبوري ayaa waxa leedihiin yaani cirka iyo dhulkan ayaa waxa leedihiin badahan ma jiro qof abuuray oo ayaka ayaa is abuuray halkaas ay xujadoodii ku burtay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqligan uu nasiyay wuxuu noogu talagalay inaan wax ku faahno quraanka sidiisana wuxuu la hadlaaba dadka aqliga la ayuu la hadlaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaani wax walba oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray waxay daliil u yihiin jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qul aghayra allahi abghi rabban وهو رب كل شيء إلهي سبحانه وتعالى وحليه ما وحن ربي كدكتا الله غير كيس أنه أج إنه إلهي سبحانه وتعالى يهي ربي وحول بقى أبوري سيداس درتد إلهي سبحانه وتعالى عقل مركو نوش شيء وقرآن كنو شيء وحكليه هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إلهي وحليه إن في اختلاف الليل والنهار هبينك يا مالنت اسبدلك اسبدليان مالن وهبين مالن ومروى مالن مروى هبين abuurista cirka iyo dhulka doomaha badaha socda dabaylaha buuraha daruuraha u dhaxeeya cirka iyo dhulka
waxaasoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala waxay ku tusinaysaa awoodiisa. ilaahay markii wuxuu yidhi inna fii dalika la aayaatin liqowmin yacqiluun, waxay calaamad cad ugu sugan tahay arrintaasi dadka caqliga leh. walaalayaal, haddii aan usoo laabano dareenka inuu ilaahay jiro inaan dareenno, waxaanu duca ayaanu ducaysanaa anagoo dhibaatana haysata, ilaahay baanu barinaa. ilaahay markaan barino wixii aan ilaahay ka barinay waa nala aqbalaa, waana nalaga yeelaa. cajiib, adiga gacmaad kor u taaganaysaa, ilaahay baad baryaysaa. markaad ilaahay baridid wallaahi waxaad helaysaa waxaad ilaahay subxaanahu watacaala ka bariday. ilaahay uu ku jeedaa addoonkiisa daciifkaa tahay, waa bariday. xataa gaalada diidan ee shirkiga la yimaada markay dhibaato culus qabato waxay baryaan ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu leeyahay waidaa rakibuu fi lfulki, markay badda fuulaan oo dee mawjka iyo hirarka iyo dhibaatada ku dhacda, dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin, ilaahay keli ayay baryaan. mukhlisiina baa layidhahda, mukhlisiina u keliyeelaan, ikhlaas bay la yimaadaan. laakiin ilaahay markuu badbaadiyo idaa hum yushrikuun, idaa hum yakfuruun, waaba gaalaba, markaas sanka ayay taagayaan. haddaba dareenka inuu ilaahay jiro waxaa ku tusinaya markaad ilaahay baridid. qof naga midana ma jiro ilaa ilaahay intuu baryo muraadku ilaahay ka baryay wuu helaa, gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee. saas darteed waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala in nimcooyinkiisa aan uga shukrino oo aanu ku qanacno inuu ilaahay subxaanahu watacaala jiro. waxaa kuu soo hartay fitrada. fitrada wataanu ka hadlaynay. ambiyadana fitrada waxa la yiraahdaa wuxuu ilaahay qofka ku abuuray oo uu ku dhashay haddii aanan laga wasakhaynin ama laga waswaasinin. qofka wuxuu ku dhashay inuu ilaahay subxaanahu watacaala jiro, inuu khaaliq jiro. saas darteed gaaladii hore wala in sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah, haddii aad weydiisid cirka iyo dhulka yaa abuuray, allah ayay ku oranayaan. yacni shaki ogama jirin rabbiga kownkan abuuray inuu allah subxaanahu watacaala yahay. saas darteed rususha ilaahay subxaanahu watacaala soo diray dadkooda waxay kula hadli jireen caqliga. suuratu ibraahim waad garanaysaan, qaalat lahum rusuluhum afillaahi shakun faatiri asamaawaati waalard, afillaahi shakun bay ku dhaheen, ma allah shaki ku jiraa oo siduu shaki ugu jiri karaa? faatiru asamaawaati waalard, allaha abuuray cirka. faatir waxaa la yidhahdaa bilaabay, wax ugu horreeyay allah subxaanahu watacaala abuurista cirka iyo dhulka ma jirin. faatiru asamaawaati waalardi, cirka iyo dhulka allaha abuuray oo abuuristooda bilaabay. waxay la mid tahay badiicu samaawaati waalardi bay la mid tahay. miyaa shaki ku jiri karaa? caqli ma ahan, macquul ma ahan. haddana yadcuukum liyakfira lakum, ilaahay muxuu kugu yeerayaa? ilaahay dembi dhaaf ayuu kugu yeerayaa, ilaahay janna ayuu kugu yeerayaa, ilaahay wanaagaada ayuu rabaa, ilaahay uu ku naxariistay. addoon yar oo miskiina oo abuuray ayaa tahay, markaasaad ilaahay subxaanahu watacaala isku taagaysaa. ilaahay wuxuu leeyahy am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun, am khuliquu min gayri shayin, ma waxaa laga abuuray yani ma waxabaa laga abuuray wax la-aan? iska yimaadeen oo iska yimaadeen. am hum lkhaaliquun, ma ayakaa is abuuray? labadaba macquul maahan. wax walbo adduunka jooga oo la abuuray oo jooga waa la abuuray, qofkiina asaga isma abuurin. labadaba macquul maahan. sidoo kale waxaa macquul ahayn inaad tiraahdid aniga wax walba waa inaan arkaan rabaa oo ogaado. waxyaalo badan waxay jiraan aaminsana inay jiraan laakiin aanan weli arag. tusaale oo kale qofkan maka tagin oo kale, makkatul mukarrama inay magaalo barakaysan tahay oo ay jirto qofkan weligiis arkin oo maqlay inuu maka jirto ee sacuudi carabiya wadanka hadda la yiraahdo ku taalo amaarud alxijaaz ku taalo, qofku rumaysanaya ictiqaad wuxuu rumaysanaya run ah laakiin weligiis muusan arkin. wuxuu arkay laga yaabaa sawiro, wuxuu arkay dad tagay. annagana jiritaanka ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaluhu abuuray ayaanu ku qancayna, ilaahay subxaanahu watacaala uga qancayna. ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal jiritaankiisa shaki kuma jiro. ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa ku abuuray. wallaahi ilaahay wuxuu kula rabaa khayr, ilaahay wuxuu kula rabaa janno, ilaahay wuxuu kula rabaa dembi dhaaf. shayaatiinta, gaalada, fusaaqda waxay kula rabaa inaa qalbigaada madoobaado, inaa muruga ku noolaatid, inaa dhibaatootid. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu dembigeena dembiga waalidkeen dhaafo. xalqada ku xigtana insha allahu tacaala waxaan ku baran doonaa caqiidada dhabta ah ilaahay subxaanahu watacaala naga mudan yahay inaan ka barano annagoo u marayna kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka. saddexdaas waa muhiim jiddan, kitaabka, sunnada iyo fahamkii salafka. lama rabo inaan annaga araadayna iska suubino, waa inaan noqonaa dad ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoon. waxaan kaa codsanaya mar labaad iyo mar saddexaad inaad fariintaa dadka si gaarsiisid. ilaahayna waxaan ka baryaynaa jala jalaaluhu inuu nagu sugo caqiidada xaq ah, inuu walaalaheen shakiga ku jira ama maaragtay tashwiishka lagu furayn ayakana soo hanuuniyo. walaalkii naasir cadceedo idin leh aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.